dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa maanta isugu soo baxay mudaharaad ballaaran ay kaga soo horjeedaan xasuuqa ay ciidamada New Booliisku ku hayaan dadka degan deegaanada hoos yimaada degmada Gaashaamo waxaana dadweynahani oo gadoodsan isugu yimaadeen afaafka hore xarunta gobolka Togdheer kuwaasi oo warbaahinta kula hadlay halkaasi kana warbixiyay sababaha ka dambeeyay inay mudaharaadkan isugu soo baxaan saaka ayagoona daboolka ka qaaday in saaka deegaanka Gorgor lagu laayay dad u dhashay dalkani Soomaaliland ayagoo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaanu nahay dadka u dhashay waxaan kugu yiri dadka u dhashay waxaan kugu yiri degmada Gaashaamood waxaanu dadka u dhashay Soomaaliland waxaanu nahay dadka u dhashay waxaan suuqaya inay waxaan nahay dadku inay xasuuqayo waxaan nahay dadku inay ciidanka u samaystay waxaanu nahay dadkoodii xasuuqay ee laayay ee googooyay ee baadhay ee guriyii gurtay ee xoolii laayay ee dadkii laayay ee xabala wareedada loo saayay ee caruurii la laayay ee uu ka hadlayay qabo gudoomiyaha mujaahidka xaqa ayaanu nahay waxaanu nahay baaqigiina waa la laayay degmada Gorgor baa lagu laayay xalay baa la wada silqiyay waa la wada laayay xarig baa lagu wada baqtiyay xarig baa lagu wada baqtiyay hatta xabada waa laga xishooday xarig baa lagu wada baqtiyay waxaanu nahay dadka dulman ee geeriyaysan ee dhibaataysan ee maalin walba la xasuuqayo ee daawanaya waxaan kugu yiraahdaa adduunyaduna daawanayso ilaa ciidanka raashka saxaabta aysan nahay kilalka shanaadiga ee Itoobiya ayaanu nahay haddaan nahayna Gaashaamo laga xukumo Gorgor iyo jaamacad badkii dadka lagu xasuuqay baada dheere deegaanka iyagu waa halka dadka iyagu horeba waa loo maqlaayay waa la xasuuqay warbaa loo jaxay dumarkiina warbaa loo jaxay dumarkii caruurtiina warbaa loo jaxay ragina warbaa loo jaxay dawladda Soomaaliland way ogtahay ta Itoobiyana way maqashiisan tahay tii horeyada waxa laali wax noolaga qabti jirin imikana waxa dhacday in daraatore nimanka ku soo guureen magaalooyinka iyagii jaamacad bad waa laga qaxay dadkii badna uma dhayntii kale Gorgor bay ku yaaceen in Gorgor iyo maxaan ku dhahay baada dheere iyo Axmed Gaab iyo dadkii loogu yimi dadkii waxaan ku dhikii dhaan watay la soo qabtay tii maxaan ku dhahay la joogtay la soo qabtay habeenkii lagu gudo dadkii la soo xiray ragin xiniye kalbada laga wada suday in waxaan ku dhigaawada lagu hayo abaadkooda dumarkii waxna la soo daayay maqaariibtii waa dumarkii laga soo daayay waxaan u baahanahay waxaan leenahay dawladda Soomaaliland harta ka gaabsanina baanu leenahay dawladda Soomaaliland anagu waxna dad reer Itoobiya laakiin waxna dad Soomaaliland jeedooda ka soo jeedo dawladda Soomaaliland waraacada waxaanu leenahay dawladda Soomaaliland ninka qabyo tiro mooyana qofka hadlo Soomaaliland ma naarag waxaan leenahay dadkiina ka gaabsanina dadkiini baan naga gaabsanina istaal Ibrahim Jamac bal leeyahay waxaanu inaad ruux habeebsanay oo aan u hadlaynaa xasuuqa ka dhacay Itoobiya iyo Soomaaliland dhexdooda dadkuna Itoobiyana way degan Soomaaliland way degan sharcina laguma soo kala galo waa deegaan gaarigaas maanta ku soo qada caaw ku keenaya Itoobiya iyo Soomaaliland anagu waan ka dhaxaynaa yaan naloo gudbinin oo naloo jirdilin Itoobiyana yaan midab socna laga gadilin waxa weeye calankii yara ee inta la ka Soomaaliland ee Itoobiya gogoysay raaligelyo balajiis baa laga bixiyay boqolaalkii qof ee xasuuqa loo dhigayna Soomaaliya ma laga ma oranin laysagama tagin Itoobiya nagama xidhna waa taa dekedeeda raranaysa waa taa joogta waa taa raalida laga yahay hanaloo kaco hanaloo gurmado baaqigiina meydadkoodii iyo xiniyoodii ila qabaan lagu soo sidaa bacba lagu soo wada cidna ma noola xasuuquna inta nala shiriyo oo meelna fadhisiyay baa la yiri shalay raganayda qabay maanta anagayda qabna war noloshaasana ku jirnaa naloo gurmado Itoobiya noo gurmato kadib markii ay bulshadani gadoodsan isugu soo baxeen afaafka hore gobolka Togdheer ayaa waxa halkaasi kala hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabiyo Tire iyo duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyagoo sheegay inay kala midaysan yihiin dhibaatada soo gaadhay dadka deegaankaasi lagu laayay ee u dhashay dalkani Soomaaliland dareenka qabtaan deewaanadu la qabnaa anagu waa shaydaanka iska naaro haddaynu soo wax ku doonno waxba ku heli mayno waanu ognay sheekadaana saaka waa la keenay waxay hore u jiray waynu ogeyn waxaan dambana waynu ka war helaynaa waynu ogaanaynaa yaani cadafadayna qaadin waynu cadaynaynaa waxaan murugadan iyo dareenkana waa idinla qabnaa annagu laakiin shaydaanka iska naara waddanka dawlad baynu nay wixii deegaankeenna ee dhib ay ka geystaan waynu ka wada hadlaynaa intaa in leeg cidda uskugeed uga tegi mayno wixii xadguduba ee ay ku sameeyaan dadkeenna waa dawladii nala mida jaarbay nala tay haddii ay xadgudub ku sameeyaan ummaddeenna ka yeeli mayno ballan weeye taas innagana cadifadda inaga daaya xaggaana dadkeenna way joogaan xaggana way joogaan
waynu hubinaynaa arrintaa waa naloo soo sheegay waynu hubinaynaa ase dawlad ahaan baynu u gelaynaa idinkaanu idin garab taagana annaga dadkaygii baa tirin annagu haddaanu cid raacayno idinkaanu raacaynaa haddaba inaga daaya cabdifadan iyo buuqan iska fadhiista ilaa intaanu hubinayno war baa naga sugaysaan innagoo gacmo haysaysanna ayaynu wada gelaynaa hawshaa inta ka horraysana aynu hubinno aynu talaynu wada leennay suuqana inaga daaya dad badan baa inala nool dawlad baynu nay reer keliya ma nihin isaaqoo keliya ma nihin somalilan baynu inaga daaya baashaa inaga qaloocinine wixii ka dhaca kilalka shanaad ee xadguduba cidna u daba fadhiisan mayno ee ku dhaca dadkeenna somalilandarka kuwii jaaco dubbad lagu dilay somalilandar baa ku jiray ingiriis baa ku jiray maraykan baa ku jiray kuwan kalena haddii laga helo dad somalilaana xuduud baynu leenna dad etoobiyaan oo dee labadii dhinac baynu wadaagnaa xaggaana way degaan dadkeennu laakiin ninka ay dhiigeenna wata ee somalilandare reer burcaa maalin ka tegey hawlu tegey ee la dilo cidna u daba fadhiisan mayno horta marka hore waxaa ogaataan islaam baa inankeedu ku tiri hooyo ruux calaacalay weli ceel kama shubin weligeedba ragga miyaan la leynayn weligeedba miyaan layna dilayn ama miyaynaan u aari jirin ragga la laayo ninka heddiisaa gashay ragcayaayir iyo kibir cayn walba u dhimay laakiin yeeli mayno rag kibir lagu laayo yeeli mayno rag kibir lagu laayo dawladda etoobiya deris wanaagsan baynahay tuug dhexdeenna ku noolaada oo dadkeenna laaya wallaahi yeelmayno waa iska celinayna inna kala kaxeeya waa barwaaqo aadan maxmed telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco.